walaalayaal ninkan waa Maxamuud Yaasiin Diriye oo la hadlayo walaalaha muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay gabadhaas soo caawiyaan kaliyuhu waa bedel labada kaliyoodba waa bedel kaadi kama timaado labada kaliyoodba waa fadhiyaan gabadhaas sidaas aad u jeedaan baa ka dhawa waxaan isugu nimid meeshaani gabar xanuunsan oo Maryan Maxamuud Yaasiin la yiraahdo oo muddo aad u badan xanuunsanayd ilaa 2 sano iyo bar dadkii ehelka ahaana ay ku rafaadeen kaliyihiina ay fariisteen maali dhaaf loo dhaqayo xaaladeedu aad iyo aad u adkaatay una baahan caawinaad ka badan dadkii ehelka ay gacanta ku hayeen wax ay ku caawinayeen in kaliyaha laga bedelo oo la geeyo Hindiya ayay dhaqaatiirtii kula taliyeen waa gabar yar oo 14 jir ah ee xaalad aad iyo aad u adag weeye dadka muslimiinta codka iyagu ay soo gaaro ee muuqaalka iyagu uu soo gaaro ee danqashada leh aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala gabariyayna inuu waxooda u barakeeyo inay gabadha caawiyaan maalin dhaaf markii hal maalin joogto maalinka labaad waa bararaysa hadaan mashiinka lagu xirin mashiinkaas ku xiran arkaysaan oo uusan dhiiga ka saarin waxa soo gaaraya barar weyn xirmaysa halkaan annagoo culimo iyo nabadoono iyo odayaal bay isugu jirno oo ku sugan magaalada Gaalkacyo waxaan isugu nimid wa tacaawanu cala albirri wa taqwa sida darteeda qofka muslimada ah ee badbaadada u baahan Ilaahay baa badbaadahayo inaan ku talagalno oo ka qayb qaadano qoftaas badbaadadeeda ayaan muslimiinta meel kasta ay joogaan bari iyo galbeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba ayaan u soo jeedinaynaa waman ahyaa fa kaanama ahya an-naasa alnaf ninka nooleeyay wuxuu la mid yahay nin nafafkii oo dhan ama bini'aadamkii oo dhan qof nooleeyay ayuu la mid yahay sidaa darteed nin walba waxa la wuxuu u awoodo si ajarkaas aan u helno oo qof bini'aadamkoo dhan nooleeyay ajarkiisa nooga qoro aan ka qayb qaadan insha Allah muslimiinta fariin baan uga gudbinaynaa fariinta waxay tahay gabar saqiira ee muddo 2 sano iyo bara xanuunsanayd gabadhaas labada kaliyood way fadhiyaan ehelku ila tacaalayaan 2 sano iyo muddada dheeraadka ah arday sabab waa la geeyay xamarna waa la geeyay meelaha ugu sareeya hadda la geeyay gabadhaas Ilaahay in laga bedelo oo Hindiya loo qaado ma ahana rajo ma lahan ummadda muslimiinta ee codkay u gaarayo waxaan leenahay gabadhaas garab istaaga taageera nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu wallahu fi aawni al-abd ma كان العبد في عون أخيه qofku inta uu kaalmeeyo walaalkii uu garab taagan yahay oo taageerayo Ilaahay baa isagana taageeraya subhanahu wa ta'ala waxa laga yaabaa gabadhaas qarashka ku baxaya hal qof oo muslimiinta kamid ah inuu bixin karo ama 2 qof oo kamid ah gabadhaas in loo gargaaro ee qarashkaas muslimiintu si degdeg insha Allah ta'ala uga qayb qaataan intaas aan soo jeedinay qofka muslimka kurbo ka fayda iyo culays iyo dhibaato haysata Ilaahay baa ka faydaya subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha isagana kurbooyinka ka faydaya waxaan leenahay gabadha saqiirka ee xanuunsan ee taageerada muslimiinta uga baahan maanta inay garab istaagaan